magaalada waxaa jiri jirta la dhaho biyoy magaalada way barwaaqo badan baa jirta dad badan baa ku noolaa xoolo qaba laakiin macallin oo ilmaha dugsiga u baro bay lahayd maalin maalmaha ka mid ah nin yaroo sheekh oo khamiis qabo u imaada magaaladii way farxeen oo maxay dhaheen anigo soo dhawaaw annaga ilaahay barwaaqadu naga siiye ilmaha bisaan rabnaa oo nina quraan noona baro noo soo dhawaaw sheekhi baa meeshii aqal loogu dhiso geed loo aaro oo la si fiican loo soo dhaweeyey maalimo kadib mise bilooyin kadib mise sanado kadib macallinkii bay xan ku bilaabeen sac baa meel soo mari gindi soo taabatay diig baa ka imaani macallinkii waa macallinka aasaasigeeda meel baa waxa lagu tuuri waa macallinka gabar baa jibni ka dhex qaylina markuu qur-aan ku akriya waa macallinka ninkii markuu magaalada biyoy ku noolaan waaye buu ka dhaqaaquu dhe meeshan ka haajir magaalo kaluu iska aada magaaladuu aaday magaalo caafimaad la dhihi bay jiri jirto biyoy ku dhegan magaaladii oo muraad ka socda u tago wax la cunaayo hade waa la soo dhaweeyo maxaa le sheekow soo dhawaaw saniyada bal adi isku qamuji intaa wax kale ka hadlin bariiskii iyo hilibkii markuu darsada buu ku margaday waa la soo ordee nin baa soo ordee dhabarkuu ka qaracay lafti baa ka soo dhacday duka markaasoo dhawar ileen balaaya magaaladii kale maxaa uga soo cararay xamasho midanna maxaa iga daba imaata margasho macallinkii muxuu dhahay tee kuu fiican dawladdii hore waan ka soo tagnay dawlad xamashay ahayd waa la damayn doonaa way doontaa saan bay noqon doontaa tanna maxay noqotay margasho markay saa usoo galeen 3,500 oo ilmood banaanka midii madaangaa laga dhigani boosho maxaa ka soo weynaatay tii ilmaha booshada laga daadi aderegaaris mise margasho waaye mise xamashee si un baa lagu dashan doonaa